waxay dhacdaa dhanka waqooyi bari ee dalka Colombia. Ma lahan wax laami ah, sidoo kale ma yaalaan wax gaari ama mooto. Meesha kaliya ay biyaha ka hesha ayaa ah hal matoor oo maalmoodba si xiriir ah ugu shaqeeya. Baaxadda jasiiradan ayaa ah wax ka yar 1 kiiloomitir iskuweer gareysan. Tirada dadka ku nool ayaa waxaa lagu qiyaasaa 1300 oo qof, midaas oo ka dhigta jasiiradda ugu yar uguna dadka badan caalamka oo dhan. Daawadayaal, ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aan uga hadlayno jasiiradda ugu yar uguna dadka badan caalamka oo dhan. Santa Cruz del Islote waa jasiirad dhacda dhanka waqooyi bari ee dalka Colombia, waxayna hoos tagtaa isla dowladda Colombia. Waxaana baaxadda jasiiradan lagu qiyaasaa daawade wax ka yar 1 kiiloomitir iskuweer gareysan, waxaana ku nool 1300 oo qof, midaas oo ka dhigtay jasiiradda ugu yar uguna dadka badan caalamka. Dadka jasiiradani ma isticmaalaan wax mobil ama internet, balse beddelkeedu waxay isticmaalaan solar oo ay ka helaan korontada. Maadaama aysan jasiiradani lahayn wax warshad ah oo u sifeeya biyaha badda, ayaa dowladda Colombia waxay u sameysay matoor uga soo jiida biyaha macaan magaalada ugu dhow. Jasiiradani ayaa waxay leedahay iskuulo, hosbitaal, hotel iyo sidoo kale kalaab ay dadku khamriga ku cabaan. Dhaqaalaha jasiiradani ayaa waxa uu ku tiirsan yahay dalxiiska, maadaama ay jasiiradani tahay jasiiradda ugu dadka badan caalamka. Balse dadka jasiiradani ma lahan meelo qurux badan oo ay ku soo jiitaan dalxiisayaasha, midaas oo keentay inay sameeyaan baraakad yar oo ay ku jiraan xayawaanaadka ay badda ka soo qabtaan. boqol iyo 50 sano ka hor, jasiiradani maysan ahayn sida ay maanta tahay. Kaliya waxay ahayd meel yar oo ay kalluumaystayaashu ku nastaan marka ay kalluumaysigoodu ay soo dhammaystaan. Balse maanta waa jasiirad muhiim u ah boqolaal qof iyo dowladda Colombia, maxaa yeelay sanad walba dhammaadkiisa waxay soo xareysaa 10 malyan iyo wax ka badan. Dadka ku nool jasiiradani ayaa waxay haysta dhibaatooyin badan, waxaana ka mid ah caafimaadka, maxaa yeelay dadka jasiiradani ma haystaan daawo ku filan, midaas oo keentay inay ka soo tagaan jasiiradooda si loo soo daaweeyo. Dhanka biyaha, dadka jasiiradani ma lahan warshado u sifeeya biyaha badda ee ku hareeraysan, balse waxay leeyihiin hal matoor oo biyaha macaan ugu soo jiida magaalada ugu dhow. Wuxuuna matoorkan shaqeeya daawade 5 saac oo kaliya maalin walba. Dhanka waxbarashada, jasiiradani waxaa ku yaala hal iskuul oo kaliya, sidaas oo ay tahay daawade. Iskuulkani waxa uu ka egyahay fasalka 10aad ama form 2. Ardayda si ay u soo qalin jabiyaan waxay u baahan yihiin inay jasiiradda ka tagaan oo ay dibadda aadaan si ay u soo qalin jabiyaan. Dhibaatooyinkaas oo dhan ayaa dadka jasiiraddan ku qanacsan yihiin oo waliba noloshoodu ku faraxsan tahay. Jasiiradani ma lahan wax askar ah, kaliya waxa ay leeyihiin security oo marmarka qaarkood ilaaliya dalxiisayaasha sanad walba dhammaadkiisa u imaada. Waxaa la sheegaa lacagta ay dalxiisku ka helaan inay dhan tahay 10 malyan oo doolarka Mareykanka ah, balse lacagtaasi waxay u gacan gashaa dowladda Colombia oo iyagu ma maamuli karaan lacagtaasi.